soo dhawow daawadahaygi maanta waxaan idii hayaa challenge aad u xiiso badan oo aad ka heli doontaan dhammaantiinba waxaana wada sameynaya Mr. Beast iyo Cristiano Ronaldo isku dayna inaad muuqaalka aad leegta saartaan oo aad channelkana kusoo biirtaan si aynu u gaarno 500 oo subscribe. Challenge-gana waxa uu ku saabsan waxaa loo qaban doonaa qof ciyaarta ku professional ah iyo qof aan professional ahayn, yacni qof ku fiican iyo qof aan ku fiicnayn. Haddii uu qofkaas ku guuleysto lacagta waxa lagu tabarucayaa masaakiin, laakiin kan aan professionalka ahayn sidaas ayaa ku qaadanaya lacag. waxaana la isku bilaamay ninkan oo lagu magacaabo Tom oo ah khabiir ku takhasusay kubaddan, waxaanu la tartamaya yarkan oo aan ahayn professional. lacagtuna waa $100,000 oo check ayaa loo hordhibay, waxaana loo sheegay inuu 4 buufin ku dhufto. nasiib wanaag xabadii koowaad saas ayaa ugu dhufanayaa, xariifkana xabadiisii koowaad sidaas ayaa uu la helayaa. check ayaana ku soo noqonaysa marka uu tuurana sidaas ayaa uu xabadii labaad ugu dhufanayaa oo la gifi maayo. saacab ayaana loo wada tumayaa oo xariifkii kale ayaana lagu odhanayaa isagana markaaga tuuro oo kubadda ayaa uu soo qaadanaya oo xariifka nasiib daro waa uu la waayayaa kubaddaas. dhammaantoodna waa ay ka wada xumaanayaan. garoonkana waxay soo wada gelinayaan dhammaan taageerayaashii kale. markii lagu dhaahdo kubadda tuur, nasiib wanaag isagu waa uu la helayaa oo kubaddu waa ay ku dhacaysaa oo jaagna halkan ayaa uu ku naxsayay, waxaanu isleeyahay ma la heli doontaa kubaddaas. xariifka kale la tartamayna waxa u hadhay hal xabo keliya. taageerayaashuna waa ay dhiirigelinayaan oo marka uu saas u tuuro kubadda sidaas ayay ugu dhacaysaa. taageerayaashuna ma is odhan karnaa isaga ayaa ay wataan oo kubaddaas waxa la rabaa intaasoo dhan inuu ka tuuro oo ku dhufto buufintaas, waxaana ku hormaraya xariifkii. marka uu sidaas u tuuro kubadda waa uu la waayayaa. nasiib darro waxay ku dhacaysaa buufinta agteeda oo qofkii buufinta ku hor dhufta ayuunbaa lacagta qaadanaya $100,000 ah, waxaana lagu odhanaya waad tuuri karaysaa. oo marka uu sidaas kubadda u tuuro dhammaantoodba aad ayaa ay wada yaaban yihiin, si lama filaan ah ayaana kubaddu ugu dhacaysaa. jack iyo taageerayaashiina halkaas ayaay ku wada dabaaldegayaan, xariifkiina halkaas ayaa lagaga raayay oo sidaas ayaa ugu guulaystay $100,000. hana iga degdegin oo muuqaalka ha isdhaafin, waxaa soo socda dad aad u weyn oo uu ka mid yahay Ronaldo oo xariifkii sidaas ayaa loogaga badiyey, waxaana loo gudbaya xariifkan orodyahanka, waxaana loo belamiyey midkan yare kuusan. ninkanna tartamayaal hore ayaa ku soo guulaystay oo waa nin caana, waxaanuu khabiir ku yahay orodka. lacagta lagu guulaysanayna waa $100,000. midkaanna waxaa la weydiinayaa inuu diyaar u yahay challenge-ga, waxaanu odhanaya diyaar ayaanu ahay oo waxa la ordi doonaa intaas oo keliya. oo ninkan waxaa la weydiinayaa halku ka bilaabi lahaa, waxaana loo soo bandhigaya $80,000 balse waa uu diidayaa. markaan kalena waxaa loo soo bandhigaya $40,000. halkaas ayaanu ogolaanayaa. orodyahankana waxa uu ka horeyn doonaa 60 mitir. haddii uu xariiqda ka hor gaadhana waxa uu ku guulaysan doonaa $40,000. midkaana halkan ayaa uu isku sii diyaarinayaa, waxaana lagu odhanayaa diyaar matiin. labadooduna waa ay isdiyaar garaynayaan. meeshaanna wacdaro ayaa ka dhici doonaa. Mr. Beastna baaskoolada waa uu ridayaa, labadooduna waa ay yaacayaan. midkana waxa uu rabaa inaan marnaba la soo gaadhin oo aan la soo qaban. qof walbana orodkiisa ugu xawaaraha badan ayaa uu ku ordayaa oo xariifkii kuusnana waxa uu arkayaa furihii guusha. kuusanana xoog ayaa uu ordayaa. Mr. Beastna halkan ayaa uu ka dhiirigelinayaa oo waxa uu leeyahay laguma soo qaban karo, balse hal mar ayaa uu ku soo baxayaa ninkii orodyahanka. hal mar ayaanu isku naxayaa oo xawaarihii ku socday waa uu sii siyaadinayaa. orodyahankuna waa uu soo gaadhayaa, waxaana lagu odhanayaa sidee tahay. sidaas ayaana looga badiyey. lacagta ugu guulaysteen waxaa la siinayaa dad masaakiina oo ciyaarta tan ku xigtana waxay ku saabsantahay kubadda lagu magacaabo baseballka oo waxaa la isku bilaamiyey wiilkan yar oo aan ahayn professional iyo ninkan oo ah nin professional oo ciyaarta ku khabiira. daawadaha yaabin, wiilka yar waxaa laga rabaa inuu meeshaas oo keliya ka saaro, ninka kalena waxaa laga rabaa inuu meeshaas oo dhan ka saaro. sidaan hore idigu sheegayna wiilka yar haddii uu ku guulaysto lacagta isagaa sidaas ku qaadanaya, laakiin ninka haddii uu ku guulaysto waa la sadaqaysanaya lacagta. daawadahaygii ninka professionalka ayaana hor bilaabaya ciyaarta, waxaana laga rabaa inuu 10 kubadood dabadda uga saaro garoonka. daawadahaygii ninkana halkaas ayaa labadiisii fursadood ugu horreeyay uu ku khasaarinaya. nasiib wanaag kubaddiisa saddexaad ayaa uu garoonka dibadda uga saaraya oo ninkan fursadooyin badan ayaa uu iska khasaarinaya, waxaanu yeelanayaa 4 gool oo keliya. oo markii uu kubaddiisii ugu dambeysay uu tuurtayna sidaas ayaa uu kubaddan ku cunayaa. wiilka yarna waa uu ku dabaaldegayaa. Mr. Beastna wiilka yar waa uu dhiirigelinaya, waxaanu ku leeyahay waad ka badin karaysaa. wiilka yarna waxaa loo bilaabayaa tuurashadiisii koowaad oo tuurashadiisii koowaadna dibadda ayaa uga saaraya taargetkii, waanuu dabaaldegayaa. familkiisuna halkan ayaa
ayaa ay ka daawanayaan oo waa ay dhiirigelinayaan oo wiilka yarna labadiisii fursadood ku xigay sidaas ayaa uu ku khasaarinayaa. nasiib wanaag kubadiisii afaraad ayaa uu ka saarayaa oo taargetka waa uu dhaafinayaa. halkaas ayaanu ku haystaa 2 gool. nasiib wanaagna kubadiisii afaraad ayaa uu ka saaraya taargetkii. halkaasna mar kale waxa uu ku khasaarinayaa 2 kubadood oo familkiisuna halkan ayaa ay ka dhiirigelinayaan. nasiib wanaagna 2 gool oo isu xigta ayaa uu keensanayaa oo taargetkii waa uu ka saarayaa kubadii. sidaas ayaanu uga guulaysanayaa waanu dabaaldegayaa. daawadahayga iga degdeg waxaa soo socda challenge aad u xiiso badan oo loo qaban doono ninkan iyo Cristiano Ronaldo. challenge-gana sidaas ayaa looga soo gudbayaa oo waxaa loo gudbayaa challenge-ga ku xiga. challenge-gana ku xigana labadan ayaa la isku belamiyay. midkan ayaana ah mid professional ah, isaga ayaana ku fiican kubadan golofka. midkan kalena balse kuma fiicna oo maaha mid professional ah. lacagtuna waa sidaan hore ugu ogeyn. labadooduna waa ay wada tuurayaan, midkoodna uma soo dhaweynaya goolka. marar badan oo ay kala turteen waxa u suurtagelisay inay u soo dhawaadaan godkii oo xariifkan professionalka ana markuu tuurto kubadiisii afaraad oo goolku isagoo u dhow ayaa uu la weynayaa oo xagga sare ayaa uu ka marinayaa oo marka hadduu dhalin lahaa sidaas ayaa uu ku guulaysan lahaa, balse waa uu dhalin kari waayey. waxaanuu tuuranayaa kubadiisii shanaad. nasiib wanaag sidaas ayaa uu ku dhalinayaa oo waa uu gelinayaa goolkii. ninka professionalkana waxa uu hadhay hal fursad oo ah tiisii shanaad. ninkanna kubaddu waa ay u dhowey, si fudud ayaanu goolka ku gelinayaa oo ciyaarta waa ay baraajaynayaan. waxaana loo qabanaya wareegyo kale. Mr Beastna kubadaha meel fog ayaa uu ku tuurayaa oo ninkan aan professionalka ahayn kubadiisa koowaad sidaas ayaa uu ku khasaarinayaa oo ninkanna marka uu soo tuurto kubadda aad ayaa ugu soo dhaweynayaa goolkii. xariifkanna marka uu markiisa tuurto goolka aad ayaa ugu soo dhowaanayaa, balse waa uu ag marinayaa oo ninkanna tuurashadii saddexaad geeskaas ayaa uu ka marinayaa goolkii. xariifkanna markuu arko inaanay fursad u hadheen halkaas ayaa uu challenge-ga iskaga hadhayaa. challenge-gii ugu dambeeyana waxaa laga geli doonaa Cristiano Ronaldo. midkaasna halkaas ayaa lagaga soo gudbayaa. challenge-ganna waxa uu ku saabsan yahay orod oo xariifkii markii hore iyo waxa wada tartami doona Aisho Speed oo Speedna markuu garoonka soo yimaado fan ayaa uu bilaabaya. waxaanuu leeyahay ma badin kari sida aniga. waxaanuu ugu jawaabaya waa la arki doonaa. waxaana la ordi doonaa 50 mitir. waxaana lagu odhanaya diyaargarooba. hal mar ayaana labadoodaba la wada fasaxayaa. waxaanay soo bandhigeen xifaaltan ah innaba caadi yahay. mid kastana waxa uu isleeyahay midka kale ayaanu kaa horumarin oo meeshii looga baahnaa labadoodaba waa ay soo wada gaadhayaan. waxaana laisu qabsanayaa qofka guulaystay oo waxa la aadayaa faar oo marka faarta la tagaan ninka orodyahanka ayaa wax yar kaga guulaysanaya Aisho Speed. halkaas ayaana challenge-ga lagaga soo gudbayaa oo challenge-ga maanta o dhan wada sugana waxaa loo qabanaya Cristiano Ronaldo iyo ninkan oo aan ahayn professional. lacagta lagu guulaysanayana waa 1 milyan. challenge-guna waxa uu ku saabsan yahay qofkii taargetka 3 kubadood ku dhufto waxa uu ku guulaysanayaa lacagta 1 milyan. waxaana hor bilaabay xariifkan shuudkiisii koowaad marka uu soo tuuro lama helayo oo waa uu cunayaa kubadaas. Ronaldona marka uu shuudkiisii koowaad uu tuuro lama helayo, isaguna sidaas ayaa uu ku khasaarinayaa oo xariifkii kale ayaa loo soo wareegayaa. markuu isaguna shuudkiisa labaad tuuro waa uu la helayaa nasiib wanaag oo halkaas waxa uu ku haystaa 1 xabo. Ronaldona kubadiisii labaad marka uu sidaa u tuuro birta ayaa ay kaga dhacaysaa oo waa uu cunayaa kubadaas oo xariifkana markuu kubadiisii kale uu tuuro waa uu khasaarinayaa oo halkaas ayaa uu ku cunayaa. Ronaldona markiisa marka uu tuuro waa uu khasaarinayaa oo waxay noqonaysaa kubadiisii saddexaad uu khasaariyo. xariifkana markii kubadiisii kale sidaas lagu dhigo isagu waa uu ka jarayaa taargetkii. halkaasna waxa uu ku haystaa 2 dhibcood. Ronaldona markiisa marka ay soo gaadho kubadda waa uu khasaarinayaa oo waa uu cunayaa oo waxa uu rabaa in laga guulaysto uu qaato lacagta taageerihiisa. xariifkana marka uu tuurto shuudkiisii ugu dambeeyey kubadda waa uu la helayaa oo halkaas ayaa uu ku keenayaa 3 dhibcood. waanu dabaaldegayaa. sidaas ayaanu ugu guulaystay lacagtii 1 milyan ahayd. waana loo wada hambalyeynayaa oo waan hubaa marba haddaad tahay fanis Ronaldo muuqaalka like waad saaraysaa, channelkana waad kusoo biiraysaa insha allahu tacaala. dhammaantiinba aad ayaad u mahadsantihiin. haddaba challenge-gan 10 mise ayaad siin lahayd. hana ilaawin aad nagu soo biirto oo aad muuqaalkana like aad saartid si aynu u gaadhno wadadeena 300 subscribe.